بسم الله الرحمن الرحيم ما هذه waxay u sugnaatay ilaaha boqorka ah ee isugu keenay golaha shacabka inaan isugu nimaadno madaxdii qaranka oo ugu sareeyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha maxkamadda sare gudoonkii baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo muddadii uu sugayay soo xulay ra'iisul wasaare uu ku aamino in uu dalka maanta halka uu ku jiro uu ka sii samato bixiyo oo uu hawsha u idmaday uu sii wado marka xiga waxaan hambalyo leeyahay saaxiibadayda aan dhex fadhiyay ee aan ka mid kahay ee codka aqlabiyadda la siiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo maanta lagu ansixiyay cod aqlabiyad leh 215 xubnood oo u soo xaadiray golaha baarlamaanka golaha shacabka waxaan leeyahay hambalyo dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo mudane ra'iisul wasaare waxay kaaga fadhiyaan ummadda Soomaaliyeed لو يعدي إلى رأسك بوني فديداي waxay kaaga fadhiyaan in aad inta halka hortayada aad ka sheegtay oo ku salaysan dastuurka federaalka dastuurka ku meel gaarka lama yiraahdo dastuurkeena iyo xulashada golahaaga wasiirada waxaan ilaahay kaaga rajaynaynaa inaad keento kuwii hawsha kula daadahayn lahaa codka lagugu ansixiyay kiisoo kalena iyagana lagu ansixin doono waxa la yahay mudane ra'iisul wasaare rooble hayaanka geediga ay u socoto dawladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed waxa la yahay mudane ra'iisul wasaare meel fiican ku fur geediga meel fiican ku fur rooble ummaddu way ku sugaysaa raali gelin xagga ilaahay inaad ka hesho raali gelin shacabkaaga wax fiican u keen meel fiicanna geediga ku fur ilaahayna ha kugu asturo hana kula garab galo halku dhigi golaha shacabka maanta wuxuu ahaa rooblow ra'iisul wasaaraha runta ah raali baan ka nahay 215 xildhibaan halku dhigoodii baa ahaa rooble ra'iisul wasaaraha runta ah raali baan ka nahay waxaan kuugu ducaynaynaa ilaahay in uu ku waafajiyo xaqa waxaan kuugu ducaynaynaa inaad noqoto magacaaga oo kale oo roob la noqoto ummadda Soomaaliyeed roob u daay oo ka saaray dhibka iyo dhibaatada ayaan ilaahay kaaga baryaynaa guulayso baarlamaanka federaalkana waxaan leeyahay sidaas ayaa la inaga rabaa hawl isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kali ah Samtel shirkadda dadweynaha